ربعنا استلت هذا لبقى قضب سياسات لقضب نفسات ولا بد بوجودها أي كتابانيان قضب ككوبات سلا صاحب ذي أما ولا لا الشيء قدر يومنا بوجوه دبقليا أو دبقليا قف كذا شيء ويا أي كلان سدين كو كلي تلسنمو لبا دحل جميسته يصدق أو أنا شيء لكن تباح يوه دجال سوكية كل قلب ككوباد إنه كاركنا وحويان قف نوع ما بوايه نوع عاسى كسر به كرا مركو دلك يسجلوا دل وجميسته ويمي كلي تلس وقدم بيجي دجال سوكينا أي وقصي دبيجي مركو وقحق كاسنا سيبو ورقم ما بنانكي وتجي مركو جودها يشوفه دقن كيس السياسة وحا كم موقع دحل جميسته وحا كم موقع سياسة قبيليسن قبيل كوساليسن أو جميسته ينبري سياسة قبيل كلا يسكن ملو لبا وحا كوساليسن حرر كمتحابسن يعني احترامين أو دقن وينبري جميسته انتو حير كاينو كان إن لجبيانا وإسلام كيبا ينبري sidoo kale waxa muhiim ah waan isleeyahay inay dusha si kasta ugu fiirsanno way tahay waa aqliyada siyaasiga ee shacabka u aragta raciyad uu marna xagga u dareeriyo marna xagga u dareeriyo uu ka xanqarsado dalal shisheeye intuu heshiis la soo galo uu yiraahdo maxaad uga baahan tihiin inaad ogaataan waxaan heshiis soo galayo miyaanan idinka aqli badnayn miyaanan madax idin ahayn idinkuna aydan mijo ahayn taas baa ah meelaha muhiimka ah meelaha marka waxa kamida meertada khaladka oo waxaan marka waayaheena la eegtid buugagan waxaad sooranaysaa khaladka waynu barannaa ee waxba kama baranno tabaatana waynu ku soo celinaayo waxay nagu sifowda haastii Yuusuf Allaale ahay dulmi diilaan aragnay dulmi doon ha isku noqon dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dumi ka digtoonow dab hulaaqay noqotee waxa sidoo kale arkaynaa inay aad u kala duwan yihiin waxa siyaasigu uu ku ololeeyo ee ahayd laakiin inuu u ololeeyo siyaasigu wuxuu ku ololeeyaa maamul wanaag wuxuu ku ololeeyaa musuqmaasuq la dagaalan wuxuu ku ololeeyaa sinaan wuxuu ku ololeeyaa dimuqraadiyad laakiin uma ololeeyo uu ku ololeystaa wuxuuna ku dhaafaa marxaladda ama catabada ah inuu meesha gaaro taasi waxay siisaa karti darrada ayay abaal marisaa saaxadda noocaas ah qofka maanta Soomaaliland baynu joognaa waxa cabsi ah in karti darrada lagu helayo wax aan kartida lagu helin qofka xuni inuu noqon karo mas'uul inuu mas'uul doonto inuu xil doonto mushkilad maaha laakiin waxa mushkilada inuu helayo qofka xuni xilka uu doontaa waanu helaa dabadeetana waxaynu la yaabnaa waxa inagu dhacay wixii helaan la yaabay baynu wada qaadnaa qodobka nafsadeed baan u gudbayaa xaaladeena nafsadeed sida ay muuna sheegtay dawlad liida ama dawlad xumidu oo aan isdhaamin dadka qaar baa yiraahdaa dawlad xumi dawlad la'aan bay dhaantaa ma dhaanta ee mararka qaar way ka daran tahay haddayna ka darnay maxaa aragga inoo yeelay awooyaasheen dawlad la'aan bay ku noolaayeen sidana malaha uma way caban jirin xaaladda nafsadeed ee qofka jiraha cusub ah hadduu dalkiisa joogo iyo hadduu qaxo oo sila calabaad labada sida hadba uu ku jiro waxa kamid ah in nafsadiisu ay wiiqan tahay in aynu saytaa isla fahno laba qodob baan rabaa inaan waxaan rabaa inaan idinka argagixiyo bismillaahi raxmaani raxiim qofka halka ka yiri kamid ah jirayaasha cusub waayo xaaladeenu waa argagax run ah waxaan u baahanahay inaynu bisinka qabsano runtana isu sheegno xaaladeena nafsadeed waxay kamid tahay mid kamid ah kuwa dunida ugu liita weeyaan waa kuwa dunida ugu liitay laakiin taa waxa ka daran inaynaan u tabaabushaynayn halkan aynu joogno Soomaaliland daraasadda ugu muhiimsan ee laga sameeyay waa 2004 oo gaafilay ka sameeyay wuxuu ogaaday in labadii guri ee kasta guri kamida laga soo helayo cid la nool xaalad dhimir ama xaalad nafsadeed oo daran ururka caafimaadka dunida 2010 wuxuu yiri Soomaaliya saddexdii qofba
qof kamida ayaa xaalad nafsadeed la nool laakiin 2022kii waxa uu yiri tirada intii hore waa ka badan tahay siiba Soomaaliya marka gaar loo eego waa 76% weeyaan heerka xaaladaha dhimir ee dalka Soomaaliya waa 76% sidoo kale dhulka Soomaalidu degta waxa kamid ah Djibouti oo qoraa uu ka yimi oo daraasadaha ugu dambeeyay ay ku sheegayaan dalka ugu qulubsan Africa the most depressed country in Africa malaha sababtana waa garanaynaa Somaliland maanta waxa ka furan dhammaan marka la isu geeyo 1948 baa ugu horeysay dhakhtar dhimir gumaystuhu markuu sii kacayay buu furay dhakhtar jeel magnuunka loo bixiyay oo berbera ku yaala oo qaadaya ila maanta markuu casriga yahay 42 sariirood oo kaliya guud ahaan 250 sariirood baa u diyaara dad lagu qiyaaso 4 milyan oo qof oo cid ka badqabtaa yar tahay waxaan rabaa inaan degdeg u maro 1948 bay taasi ahayd 1972 laantii koobaad ee cisbitaal weyn kamid ah ee dhimirka u khaasaba Hargeysa laga furay oo cisbitaalka weyn oo 53 la furay baa qayb kamid ah loo xaadxaaday 2003 qaybta caafimaadka dhimirka ee Boosaaso oo 10 sariirood oo kaliya qaadaysa ayaa la furay 2009kii waxa xarun bukaan socda Burcad laga furay kadibna 2011 waa bukaan jiif lagu soo kordhiyay 13 sariirood baa u diyaara 2023 laasxanood baa qayb caafimaadka dhimirka laga furay 2023 magaalada Ceelgaawo baa qayb caafimaadka dhimirka isbitaalka weyn hoos timaada laga furay dhulka Soomaalida ee la yiraahdo shanta Soomaaliyeed waxa ku yaala hal isbitaal oo kaliya oo caafimaadka dhimirka ku takhasusay oo la furay 1948 dibna aan loo soo eegin oo berbera ku yaala 2011kii waxa magaalada Boorama iyo xarunta Jaabaha oo kooban laga bilaabay 2012kiina waa la hirgeliyay 2019kii magaalada Gaalkacyo ayaa qayb haweenka u gaar ah laga furay isbitaalka guud ee magaalada 2013kii isbitaalkii la furay 1924kii uu Talyaani Maxamed ka furay isbitaalka Forlanini ayaa 2013kii qayb caafimaadka dhimirka loo sameeyay 2016kii isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley oo la furay 2011kii ayaa qayb caafimaadka dhimirka loo sameeyay magaalada Badweyn 2019kii baa loo sameeyay waxa uu dambeeyay bishii February ee sanadkan oo magaalada Dhagaxbuur qaybta caafimaadka dhimirka loo furay waa dhulkii Soomaalida oo aan sidaa idin dul mariyay saa u aragtaan inaynu malaha iska qoslayno ayna waxba inoo badqabin dhibaatada ugu muhiimsan ee aan badan ku soo celceliyo hadaad ila socotaan waxa weeyaan axgab oo ah inaynu gasariirnay psychologically numb and intellectually dumb inaynu aqli ahaanna badow noqonnay nafsad ahaanna gasariirnay oo ay kabuubiyo inagu xidhan tahay gabi ahaanteen waayo waxay see ka dambeeyay wax kasta oo cid la yaabna ma laho waxay see ka dambeeyay wax kasta oo dadka gasariiriya waxay see ka dambeeyay gumayste kaditalis dagaalo sokeeye dagaalo diineed bisaarad abaaro dawlad xumo rajayntii dadka gasho 4% u codeeyaan hadhowna ay su'aal iska weydiiyaan taasi waxay dhashay dadnimo tiran bay dhashay dehumanization qofka Soomaaliga ahi aad qof uma aha waayo waxaan oo dhan baa boogahan badan ee taariikheed baa dushiisa ka muuqda waa madxafka cadaabta sidoo Ibrahim Hawd u bixiyay taa waxa ka daran inaynu ismoognahay hal qiso rabaa inaan idinka sheekeeyo laba qiso aan dhaho labada ma badna laakiin xiriiriyo hadduu ii dhow yahay haddii kale isuma soo jeedinayo December 2019kii xamar egas control waxa ka dhacay qarax aad u khasaaro badnaa oo ka mid ah qaraxyada nasiib darrada ay maalin kasta dadka Soomaalidu ku dhintaan ee argagixisadu ay ka geysato 76 qof baa ku dhintay oo badnaa arday waxbarasho isku duqa magaalada xilligaas intuu tagay goobtii ayuu yiri waxa alxamdulillah inaanay dad muhiim ah ku dhimanin goobta waa duuban tahay waayo wuxuu muhiim u yaqaanaa isaga iyo wixii la halmaala siyaasigu dadka kale wuxuu yaqaanaa yaro aan isagu ka muhiimsan yahay mana oga inay dhibaatadu waxa weeye isagu isma oga dadka uu madaxda u yahayna ma oga inuu khalad ku jiro inuu dhibaatada qayb ka yahay waayo wuxuu waa mas'uul gabay oo u taliya ummad gabtay
bishii June 17keedii 2020kii waxa deegaanka Jalam ee Nugaal Puntland hooyadii ku dilay nin Faarax la yiraahdo oo waliba sarabad ku dilay kadibna maxkamadda ciidankaas soo qabtay bil kadib July 14keedii muddo yar kadib October 17keedina dil baa lagu fuliyay oo walaalkii ka yar baa ku fuliyay hadda dhacdadaas waxa laga baranin maxaa sababay qof waalidkiisa dilo oo waliba sidan u dilo ta in wax la iska weydiiyo waxa laga door biday in qoyska laba qof ka wada dhintaan xaaladda Soomaalidu malaa waxa soo koobaya Allah ma haystaaf buriye oo yiri indhaha saxar baa ku jira fartan kaga saari la cidiya saraya ku yaal aad baad u mahadsantihiin buugana akhriya